ururka qaranka Naaw ee gobolka Gabiley ayaa si rasmi ah waxay u fureen tababar lagu baranayo qaabka loo kariyo cuntooyinka noocyada kala duwan dawaarka iyo waliba farshaxanka waxaana tababarkan qaadanayay qaar kamid ah haweenka magaalada Gabiley oo iskugu jiray dhalinyaro iyo waayeel kuwaas oo si xeeladaysan loo barayay qaabka loo karin karo cuntooyinka noocyada kala duwan iyo sida dawaarka loogu tali karo dharka iyo waliba qaabka loo sameyn karo farshaxanka noocyadiisa kala duwan waxaana tababarka furtay gudoomiyaha ururka qaranka Naaw ee gobolka Gabiley Haweeye Cabdi Kaahin iyo xogayaha ururkaasi Kaltuun iyo waliba gudoomiye ku xigeenka Naaw waxayna yiraahdeen anigoo ah gudoomiyaha ururka qaranka Naaw waxaan halkan ku soo dhaweynayaa maanta oo si qiimeeyo qaayaba leh aan ugu soo dhaweynay dadkii wax la barayay dhamaantood kuwii cuntada kuwii dawaarka kuwii la barayay waxbarashada dadban iyo farshaxanka marka maanta waxaan u aastaynay maalinta cuntada laba cishana waxaan u aastaynay dawaarka laba cishana waxaan u aastaynay farshaxanka inta kalena waxbarashada aan u aastaynay saasaan ugu qaybinay marka halkan imaga dhamaantood inta aan qornay ee waxbarashada diyaar u ah dhinac walba waa 35 dumar ah ayaan qornay oo diiwaan gelinay oo 35 kaasi ay reer u yihiin inay wax bartaan annaguna hadii aan nahay ururka qarankeena waxaan doonaynaa inaan u faa'iideyno annaguna aanu shaqadayadii aanu halka ka sii wadno oo de ururkayaga dib u dhisno oo aanu heer gaarsiino dhammaan bulshada kala gadisan haweenka gobolka ku dhaqan ee ku noolna aanu u faa'iideyna annaguna marka dhammaan intanba waxbay barataa inaba waxbay barataa annagu hadii aanu nahay horta ururka haweenweynaha gobolka Gabiley ee qaranka hadii aanu nahay maanu shaqayn jirin intii hore laakiin imaga waxaanu rabnaa wixii naga tagay iyo waxa soo socdaba sidii aanu intiiba u heli lahayn waqtigii naga lumay aanu u heli lahayn marka hay'adaha dawliga iyo hay'adaha aan dawliga ahaynba waxaanu ka codsanaynaa inaanu xiriir la yeelano inay gacan qabadna siiyaan inaanu caawimo ka helo dhinac walba tu waxbarashada ay tahay tu kasta aanu ka helo ayaan iyagana ugu baaqayaa in ay de wax nala qabtaan oo ina garab galaan annaguna waanu u soo bandhignay waanaga u sheegana hay'adaha dawliga iyo kuwaan ahaynba inay wax nala qabtaan jeedada iyo kulanka halkan aan ugu nimid oo ah daahfurista cunto karinta oo ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka gobolka Gabiley waxaanu intaasoo haweena ayaa la barayaa cuntada ma aha mashaariicda iyada cuntada oo kaliya halkan waxa yaala makiinado hablaha dawaarka barta waxa jirta koox kale oo iyaguna waxbarashada dadbana waxa jirta farshaxantii boorsooyinka bacaha yaryar ee kuuskuusan oo aanu ka sameeyno boorsooyin dacsado maxaan ku dhahday boorsooyin kuwa degtiyo kuwa moobilada lagu qaato adu mashaariicdu way fara badan tahay jimcaha oo kale waxaan u astaynay maalinta cunto kariska hilibkan waxa la yiraahdaa kikaati marka waxa ku jira khudrado fara badan halkan shaah aan de wali aanu arag baa ku jira oo isaguna qalab ana xawaash fara badan lagu daray hilibkan kikaatiga iyo khudradiisa waxa lagu cunaa maxaan ku leeyahay roolida iyo qalabkan kale ee suugadiisii ah oo loo diyaariyay oo khudrado fara badan oo isku jira waxa jirta maalinta jimcaha sidaan sheegay waxaan u aastaynay cunto karinta maalinta kale ee salaasadana waxaan u aastaynay dawaarka arbacadana waxaan u aastaynay farshaxanta sidaas aan hawsheeda u wadana anigoo ah gudoomiye xigeenka ururka Naaw ahna macallimiinta waxbarta ardayda waxaan ku sheegayaa inaan haweenka dhan ee meesha isku yimid aan ka caawiyo xagga waxbarashada jecelahay inaan soo saaro arday tayo leh oo waxbarata waayo gobolka wuxuu u baahan yahay dumarku doorka ay waxbarashada ku leeyihiin ay muhiim tahay soo baxaan arday tayo leh saas ayaan ku rajaynahay dhan walba farshax arday tahay haday waxbarasho tahay haday cunto tahay qayb walba waxaan doonaynaa inaan soo saarno arday tayo leh oo wax ka oola si kastaba aatee tababarkan lagu baranayo qaabka loo kariyo cuntooyinka dawaarka iyo waliba farshaxanka ayay noqonaysaa markii ugu horeysay ururka qaranka Naaw ee gobolka Gabiley uu si rasmi ah u furo tababar noocan oo kala iyadoo ururka qaranka Naaw ee Gabiley yahay mid ku dadaalaya inuu horumariyo shacabka gobolka Gabiley isla markaana gobolka ka qabto wax qabad hor leh iyadoo dadka tababarka loo furay ay geestooda sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan tababarkan kana baran doonaan xeelad ay ku shaqeystaan iyagoo dhinaca kale u mahad celiyay mas'uuliyiinta ururka qaranka Naaw oo ay ku tilmaameen urur wadaniya oo dadkiisa wax baraya waa Jaafar Awil Hareeri shabakada wararka Gabiley News magaalada Gabiley.